garoonka Anfield ee magaalada Liverpool waxaa galabta ku kulmaya Liverpool iyo West Ham United kulan ka tirsan Premier League. xilliga Soomaaliya marka la joogo 9 saac iyo bar ayaa kulankan la ciyaari doona. Liverpool waxay rajeynaysaa goolhayaheeda Alisson Becker in kulankiisa ugu horeeya ee Premier League inuu ku soo bilowdo ciyaartan tani markii 56 milyan oo lacagta pound ah uu kaga soo biiray kooxda Roma. Liverpool waxaa ka maqnaan kara Dejan Lovren oo aan kulankan diyaar u ahayn. Fabinho ayaa laga shakinayaa kaas oo xanuun qaba isna. Goolhaya Alisson Becker ayaa ciyaartan il gaar ah loo lahaan doona maadaama Premier League inta badan la fiiriyo goolhayaasha iyo sida uu noqdo bandhigooda. West Ham United waxaa shaki laga gelinayaa ciyaaryahano badan sida Jack Wilshere, Philip Anderson, Carlos Sanchez in kulankan ay diyaar u noqon karaan, balse garabkooda duula Andre Yarmolenko ayaa diyaar noqday kaas oo kulankan ku soo bilaaban kara. haddaba labada tababarba waxa ay kala sheegeen inay rajeynayaan isbedelo cusub inay sameynayaan. tababar Emmanuel Pellegrini ayaa wata kooxda kubadda cagta West Ham United waana tababarihii hore ee kooxda Manchester City, isaga iyo Liverpoolna marar badan way soo arkeen. Jurgen Klopp maadaama ciyaaryahano badan uu hantiyay amaba uu heesto waxaa laga doonayaa inuu isticmaalo shax degan. sidaas darteeda ciyaartan falanqeynteeda kooban hadaan fiirino, Liverpool ayaa badisay 3 kulan ee ugu dambeysay kooxda West Ham ay la ciyaartay, ugu yaraan 4 gool ayay 3daas kulan dhalinaysay. West Ham United ayaa iyana hal mar ku badisay garoonka Anfield 45 kulan oo ay garoonkaas soo booqatay. 12 kulan ay bareejo ku galeen, 32 kulan waa laga badiyay West Ham United. 3-0 ay hal gool sheegtaan waana bishii Agoosto 2015 ciyaartii ay wada ciyaareen labada kooxba. Liverpool lagama badin markay Anfield joogto xil ciyaareedkii la soo dhaafay kulamadii ay wajahday kooxaha. 12 kulan ay Anfield ku badisay, 7 ay bareejo ku gashay, 45 gool ay ku dhalisay garoonkeeda Anfield, 10 gool kaliya looga dhaliyay. marka record fiican ay Liverpool haysataa marka Anfield la joogo. markii ugu dambeysay labada kooxood ay ku kulmaan ciyaaraha labada xil ciyaareed ee ugu dambeysay Liverpool ay kooxaha la ciyaarto kulamada furitaanka 13 gool la iska dhaliyay. tusaale kale xil ciyaareedkii koowaad ee Jurgen Klopp Liverpool waxay la ciyaartay Arsenal 4-3 ayay ku dhamaatay ciyaartaas oo 7 gool la iska dhaliyay. xil ciyaareedkii labaad ee Klopp Liverpool waxay la ciyaartay kooxda la yiraahdo Watford 3-3 ay ku dhamaatay 6 gool la iska dhaliyay. sidaa darteeda waxaa la iska dhaliyay 13 gool labadii kulan ee ugu dambeysay Liverpool ee furitaanka. saadaashaada ciyaartan qaybta hoose ee commentiga ayaad kaga dhiiban kartaa. waad ku mahadsantahay daawashada Qaraaxa Tube. waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta. fadlan subscribe share garey like na saar oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.